وأقول يرى نلاش حرمر بدك سجاي وأنا كويتو والخدي عدنا يوصل بعد ما لها وحى بخرنا قلب دلاء يجب يقويد إن أي كخوة عن وينلاش الصحراء يهوديس أي والخد بخر وحى والخد بخر على هاي وحى نبسطي بوخشة أنيق سكولك أنكو بصو بوخاني وحى نعري إماشها أنيق أنكو إيماني لكن وحى تهي أنيق قيب كميدنا للشيء dadta ay kaga fogaaday in nolol kala aan sameesto ama nin kale aan guurso si noloshaada ay heer sare ay u noqoto dadta ay kaga fogaaday in aniga laba ilood aan ku xarakoodo sida dumarka asaagayga ay xarakoodaan ishaan dadka ay kuga caanayaan adigana dhaleecaan fara badan aad kala kulantay oo anigana naceeb ay u qaaday aad fiirin weyday jacaylka waalidnimo iyo daryeelka aan ku daryeelay haddaba hooy ishi waa ishi adiga iskuulka aad ku baranaydo dugsigana aad ku aad si adiga aad wax u barato ayaan aniga isheedu u saaray ee maahan wax dhaamac ishaan iga soo gaaray waxaan ku rajaynayaa mar walba nolol sareyso iyo mustaqbal horumar leh in asaagaagan aad ka saramo waxa kaliya ku riyoon jiro waxay tahay in noloshaada aad wax qabsato asaagaagan aad noqoto midka ugu sameeyo haniyo jabin hooyo haddii warqadan aad akhriso waayo waxay ku tahay dhiirigelin in noloshaada hore aad u wadato كونكان أنت جوكتو وحضرك دونتا عقبضة فربضان إن الله شعب الصومرة سيد أنا جاي الصومرة لكن هو وحص وحصوصا دونتا وهايو نلا شدنا كذا فراتي ويلكي هذا برتي سيد ويلكي هذا هرمر أيوة جالسيسو وحلو يبيسي حبنا هذا وقال سنتركا متكمل سرية ديسا ينولش يسمو الموضوع مثرمر وين كسبية أساقي سنة كهر isaga laakiin ma san dareyn eelka xadaafka ah ee maamul wiilka ay siisay iyo dadaalka mar walba ay u dadaalayso wuxuu ugu abaalguday inuu naceeb fara badan u qaado halka iyada jacayl fara badan ay siisay sheeda midig ay isaga dartiisa u beecisay laakiin isaga qisadaas oo dhan way ka qarsoontahay waxaan idinla wadaagi doonaa qiso aad u xanuun badan qiiro goonin wadata haddii aad dhamaysato in aan rajayn doono in noloshaada waxyaabo fara badan ay ka bedeli karto waa qisada labaad ee idinla wadaagi doono aan u arkay inay yihiin kuwa cimrish qaadasho u baahan aadna u xanuun badan waxaan idinkaga sheekeyn doonaa hooyo iyo wiilkeeda kuwa oo ku noolaa magaalada meel ka baxsan ama sida u taqaanaan meelaha loo yaqaano tuulooyinka waxay ku nooleed maamadan tuulo waxay haysataa hal wiil oo 11 jir ah wuxuu ku soo dadaashay noloshiisa inta badan waayo wuxuu ku soo korisay awoonnimo ama aabba la'aan aabihiisi markuu dhimanayay wiilkan wuxuu ahaa mid hal sano jir ah waxay ka doorbitay in nolol kale ay samaysato ama nin kale ay guursato in isaga noloshiisa mar walba ay hormariso in asaagiisa uusan ka liidinin waxbarashadiisana ay kor u qaado mid horumar nolosha ka gaaray uu noqdo si walba ay noqotaba hooyadii waxa ku adkaatay in ay sii wato waxbarashada wiilka waayo waxa soo wajahay caqabado aad u fara badan sababtoo ah nolosha waxay ku gaarsiinaysaa heer nolosha dhan baad ka quusato waqtiyada qaar hooyadii waxa ku adkaatay in cunugii waxbarasho ay u sii wado maadaama ay ku soo korisay agoonnimo wax walbana iyada mas'uul ay ka tahay nin kale aysan guursan wax walbana dartiisa ay kaga fogaatay waxa u cuntumi weyso hooyadii in iskuulka iyo dugsiga oo kaga haro wiilkeeda arrimo dhaqaale darteeda hooyadii ayaa waxay kaga tagtay wiilkeeda muddo 3 asbuuc gabadha iyada la dhalatay isagana waxay uga aadan tahay habaryar habaryartiisa ayaa waxay uga tagtay wiilkeedii 11 jirka waxay ku tiri 3 asbuuc ayaan magaalada ka soo noqon doona iyadoo danaha iyo muhiimadda magaalada ay ka leedahay intaba aan la wadaagin hooyadu waa mid naxariis badan dareemi karta waalidka xaq uu ubadkiisa uu ku leeyahay magaaladii ayay timid waxaan u soo baxday in isaga dartiisa ee isheeda midig ay u iibiso isaga laakiin waxaasoo dhan way ka qarsoon yihiin oo lama socdo wuxuu ugu bedeli doonaa nacayb halka jacayl aan caadihin iyada ay u muujin doonto isheedii midig ayay iibisay 3 asbuucna waxa ay joogtay magaalada si ay uga kabato dhaawac markaas iyada ka muuqda si cudurdaar ay ugu sameeyso markii ay tuulada tagto markii tuulada ay tagtay waxa uu tagtay wiilkeedii ay gabadhii ayada la dhalatay ee wiilkana habaryartu ay waxay ku tiri maadaama 3 asbuuc magaalada ku maqnaa ishaani dhaawac ayaa meesh iiga gaaray oo alxamdulillah hadda waan fiicanahay ishan waa iska soo saaray wax dhibaatana ma qabo wiilka ma dareemi karo saameyn ay leedahay isha qofka bini'aadanka inuu ka saaro noloshiisa iyo mugdi intee ay u horseedi doontaa maamadii waxay ku qancisay wiilkii habaryartiis in ishii dhaawac darteed ay isaga soo saartay laakiin sheekada sidaas maaha oo isha way ay soo gaday si isaga noloshiisa ay hormariso waxbarashada asaagiisa oo kaga haray
waxay awoodi weysay in bish walba lacagta ay ka bixiso deemo fara badan oo lagu yeeshay bisha dhamaadkeedana bilaha qaarna isku soo gaargaaraan wiilkii ayaa markii dambe wuxuu galay nolol aad u qurux badan halka hooyadiisna ay gashay mugdi inaba aan caadi ahayn waxay ahayd mid bil walbaba kood ilaa labada lacagta mushaaraadka iskuulka iyo dugsiga intaba kaga bixisa cali wuxuu ahaa 12 jir hooyadiis ayaa mugdi gashay isaga ayaa noloshiisii horumar iyo isbedel fara badan arkay haddaba waxaa ogaataa qofka kaliya noloshiisa mar walbaba khatarta ku gelin karo waxyaabaha uu jecel yahay kaaga fogaan karo xitaa geeri u doorbidi karo waa waalidkaaga oo kaliya markii dambe hooyadu waxay ahayd mid aad u naxariis badan jacayl fara badanna cali u qabta galabyada qaarna ku soo booqato iskuulka 3 galab ilaa 2 galab ardaydii ayaa waxay ku caynayaan cali hooyadiisa maadaama isha ay laadahay adduunka sida hadda uu horumarsan yahay markaas uma horumarsaneen miyaarad iyo ookiyaala midnaba lama aqoon hooyadii ayaa iskuulka waxay ku imaan jirtay iyadoo ishiila si wiilkeeda u soo booqato una ogaato tacaamulka macallimiinta iyo dhaqankiisa iyo waxbarashadiisa harka ay marayso ardaydii ayaa waxay ku caanayaan cali bareesharna ku saarayaan in hooyadiis iyo hooyooyinkeedu isku mid ahayn tan iyo ilaa laakiin cali sheekada ka qarsoon ayaa isha in asiga waxbarasho uu kugu jiro cali ayaa wuxuu aad u dhibsaday caayada ardayda qaar ay u soo jeediyaan hooyadiis ayuuna nacayb fara badan u qaaday wuxuu dhibsaday booqashada ee soo booqanayda iskuulka iyo imaatinka asiga ay u imaanaydo uma sheegi kara cali hooyadiis laakiin waa mid dhibaato fara badan dareema markii irid iskuulka ay soo qaabisho ama ay ka soo gasho si isaga xaaladiisa ay u ogaato hooyadii ayaa waxay si hoos ku maqashay in wiilkeedii lagu caanayo isha iyada ay laadahay isagana uusan jeclaysan bataatan bin iskuulka ay imaado hooyadu waa mid aad u naxariis badan waxay joojisay booqashada isaga ay soo booqanayday maadaama ardayda ay caanayeen isagana uu dhibsaday imaatinka hooyadiis iskuulka ay imaanayeen markii dambe iyadoo imaanin ayaa waxay soo qaabishay hooyadii geeridii oo waxaa laga afsaday koonkii laakiin hooyadu waxay samaysay mid aad caqli badan ayay ahayd inta sakaraadka uu saarnaa ayay waxay samaysay warqad ayay wax u qortay cali waxaan ugu dhiibtay habartiis markii xaaladaas ay dhacaysan cali waa mid iskuulka maqan ee waxbarasho jira waxay tiri cali markuu uu imaado waxaad igu dhiibtaa warqadan haddii adduunka aan sii saarnaa waay cali mooye qof kalena uma dhiibi kartid oo balan ayay kala qaateen ayaa warqadii la wadaagtay subaxii markii galabtii maamada la soo aasay ee geeridu qaabishay tii rabbina ay wadatay subaxii ayuu cali wuxuu la fariistay warqadii in aqrinteedu uu bilaabo inta uusan dugsiga aadin subaxii dugsi ayuu aadi jiray galabkiina iskuul ayuu aadi jiray waa wiil yaro nolosha horumar badan ka sugaayo waana 12 jir warqadii cadeed ayuu la soo baxay malaha waxaaba ku qornaa qalbi dilaac niyad jab iyo oohin in ay ka qawato cali waayo nolosha saxda ah ee hooyadiis ayaa warqada ku qornay waxa warqada ku qornay cali hooyo waxaa dhibsatay booqashada aniga iskuulka aan kugu soo booqanay waxaa nacday imaashaha aniga aan ku imaanay laakiin waxaa tahay aniga qayb ka mid ah noloshayda dadka ay kaga fogaaday in nolol kale aan samaysto ama nin kale aan guurso si noloshaada ee heer sare ay u noqoto dadka ay kaga fogaaday in aniga laba ilood aan ku xarakoodo sida dumarka asaagayga ay xarakoodaan ishaan dadka ay kuga caanayaan adigana dhaleecaan fara badan aad kala kulantay oo anigana naceeb ay ugu qaaday aad fiirin weyday jacaylka waalidnimo iyo daryeelka aan ku daryeelayo haddaba hooyo ishi waa ishi adiga iskuulka aad ku baranaydo dugsigana aad ku aado si adiga aad wax u barato ayaan aniga isheedu u saaray ee maahan wax dhaabaca ishaan iga soo gaaray waxaan kuu rajaynayaa mar walba nolol sarayso iyo mustaqbal horumar leh in asaagaagana aad ka sara noqoto waxa kaliya guriga jir waxay tahay in noloshaada aad wax qabsato asaagaagan aad noqoto midka ugu sareeyo haniye jabin hooyo haddii warqadan aad akhriso waayo waxay kuu tahay dhiirigelin in noloshaada hore aad u wadato koobkaan intaad joogto waxaad arki doontaa caqabado fara badan ee noloshaada soo mara sida aniga ay u soo mareen laakiin hooy waxaa soo xasuusan doontaa in naxariistii mar walbaba ee aan ku siin jirin cali wuxuu noqday mid meeshii ku ooya inin aan dhammaanna ku bilaaba inintiina ay ka qabato haddaba walaal maxaad samayn lahayd haddii qisadaani ay noqon lahayd mid adig kugu dhacda ama goobjoog aad u ahaato qaybta commentiga ayaa waxaa noogu reebi kartaa wixii qoraala sheekada ay kaaga soo dhexbaxay duluucda sheekadu haddaba wax walba ama dhibaato walbo aad aragto sidaad u malaydo maahani si kale ayay noqon kartaa oo iska hubi oo ha ku degdegi muhiimadda sheekadu naxariistu iyo jacaylka waalidnimo maahan mid marnaba dhamaado
anigu waa caaqil janalka naga daawaneedaan waa Axmed Caaqil haddii aad jeceshahay qisooyinka noocan inaan soo badino qaybta commentiga ayaa noogu qori doontaa inta muuqaalka mid ceenkaan kulmi doono waa anigu caaqiloodan sidaas iyo nabadgelyo